ciidamada qalabka sida waa mahadsan yihiin dawladdeena sharafta waa mahadsan yihiin xasan waxaan leenahay sheekh xasan halaya saaka waxa ka dambeeya banaanbaxan oo ah mid uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid lagu taageerayo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab isla markaana uu ka soconayo deegaano ka tirsan Galmudug dadka deegaanka iyo maamulka degmada Gaalkacyo ayaa si wada jira u soo dhaweeyay guulaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gaareen dagaaladii u dambeeyay ay la galeen kooxda al-shabaab ee ka soconaya deegaano badan oo ka tirsan Galmudug mas'uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo ayaa si wada jira u sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iyagoo sheegay in shacabka reer Gaalkacyo ay mar walba diyaar u yihiin inay gacan siiyaan ciidamada dawladda duqa degmada Gaalkacyo Abdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in reer Gaalkacyo ay garab taagan yihiin ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanada dawlad goboleedka Galmudug laamaha amniga waajibkooda iyo maamulku waa gudanaya gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir maanta wuxuu ku maqan yahay hawlgalka xoreyntu jira annaga ku matalayna halkan asaga iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo dhammaan gobolkii shaqa ku maqan yihiin taliyaashii qaybta Galmudug iyo Puntland taliyaashii saldhigga booliis iyo nabad sugid iyo dhammaan heer walba ciidanka xasilinta dhammaan halkaan ay nagu sugan yihiin waxaan rabnaa shacabkeena niraahno midka barkadaha qodaya iyo midka geela dhacaya iyo midka aanada qabiil wax u dilaya iyo midka moobilada furanaya dhammaantood iyo midka khamrada daroogada dadka u keenaya dhammaantood waxay noo yihiin shabaab bay anaga noo yihiin dhammaantood shabaab bay noo yihiin sababtoo waxay fududaynayaan amni darro waxaan rabnaa isku meel uga soo jeesano magaalada Gaalkacyo waa la socotaan hawlgal baa ka socda hawlgalka ka socda wuxuu ujeedkiisu yahay in idinku amni iyo nabad ku seexataan warinta shacabku diyaar mooyee qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay dibadbaxa ayaa sidoo kale ka hadlay anagu ciidan abni ahaan shabaab waxa naga go'an in la diriro dhiigeygana ku bixino gudaha iyo banaankaba waxaan rabaa inaad taageertaan oo informationkooda bixisaan kuwa gudaha ku jira oo guryaha iyo agagooda degan iyo kuwa dibadda jooga oo xoolihiina dhacayaba haddii aad taageertaan meesha joogaan baa ugu tagaynaa waana soo afjarana taganahay doorka annaga aan leenahay inaan qaadano meesha annaga hadda ay fadhiyaan horay inaan u galno cadowga meeshiisa inaan ugu tagno aad iyo aad inagu raaxaysataan rajaynayna haddii ilaa dubahan ku dhufanno dadka waxa weeye waliba annaga waxaan nahay haddaan reer Mudug nahay dadkii Cabdullaah Ciise ka dhashay baan nahay dawladnimada haruub waxa la ninkii soo lisay la og yahay nin walba hasidaa la yiri dawladnimada maanta aan wado Soomaaliya waa kugu ducaynaynaa waxaan leeyahay afkii shacabka labada maamul Puntland iyo Galmudug ku hadlaayay maanta ciidamada ay garab taagan iyo shacabka ay garab taagan leenahay Allah kugu guulay madaxda ah iyo dadka bulshada cayaanta u ah oo wax galka bay bartilmaamaysan nimankaas marka in la diriro oo la zuuliyo waxa weeye fikradaas oo dhan wixii qabo dhan in la zuuliyaa waajib weeye dawladda Soomaaliya oo isku hawshay iyo intii kale ku gacan siisay iyo dhammaan culimada ahlus sunna wal jamaa oo awal daali u ahayd nimanka khawaarijta dalka in laga sifeeyo sabab u ahayd dhamaantood waa u mahad celinaynaa mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay waxaan ku soo gabagabaynaynaa guul baa la joogaa inaan reer Galmudug iyo reer Puntland gabagabadii baa la joogaa in la dhameystiro nimankaas diin ma wadaan diin haday wadaan dadka muslimka ma laayeen waa qofkii ay dilaan hadda culimada sheegto way luujano Libin Cajiib Xaaji TV Universal Gaalkacyo